الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa caawa magaalada Ankara lagu soo gabagabeeyay shir lagu kulansiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Ethiopia Abiy Ahmed, kaas oo garwadeen ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu saleynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay, sida heshiiskii khilaafka dhaliyay in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay, labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku saleysan isqadarin iyo dhowrista qarannimada, madaxbanaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal. warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo kaliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha, laguna saleynayo dhowrista qarannimada, madaxbanaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si mug leh ugu mahadnaqaysaa madaxweyne Erdogan, shacabka iyo dowladda Turkiga martigelinta kulankan muhiimka ah iyo dadaalka ay muddada 8 bilood ku bixiyeen kamira dhalinta xasaradan ka aloosneyd Geeska Afrika. waad mahadsantihiin.